rabaa inaan idiin sheego reer Jubbaland xaalad adag iyo marxalad adag baynu soo maray insha Allah waan ka gudubnay hadda marxaladahaas muftiyo badan baa inoo iman doona waxaan kala hadli doonaa waxay tahay wadanka waxa maanta loo yaala Soomaaliya maanta waxay mashquul ku tahay siyaasad maxaan qabanaa yaa noqonaya yaa ka noqonaya laakiin baahida maanta wadanka taallay waa mid ka weyn waxa maanta dadku ay ku hadaaqayaan iyo waxa siyaasiga Soomaaliga uu ka hadlay burburka iyo dhibaatada iyo kala maqnaanshaha aan hore u sheegay Soomaaliya kuusan iyo walaalo iyo isku wadis waa loo waxayn karaa ninna ma samayn karayo khaladaad kale ma waxayn karayo dawladdana waanu sheegnay inay ilaaliso shuruucda iyo dastuurka iyo waxa dadka u yaalay lagu wada dhaqmayo haddii qofku uu tiisa ilaalin waayo dee wixii kale dhibaato ay soo gaadhay waad garan kartaa waxa isagana ay saameyn ku yeelanayso shalay baa xadgudubyo la sameeyey wasiir baa la xiray si aan sharci ahayn ciidan baa gudoomiyaal iyo maamul baa la qaaday meelahan munaasab ahayn baa la geeyey dawlado kale interfeer ku sameeyey wax kale lagu soo sheegay waa la qaaday maanta dawladdu markay gudoomiyaal degmo dawladda magacawday oo haykan dastuuriga ku magacaaban oo shaqeynaya intay qaada tiraahdo wax kale aan idiin sameynayna xaq ay u leedahay muxuu yahay maanta haddaan anigu sheegto waxyaalaha federaalku uu leeyahay oo idhaahda anaa iskale maanta anaa lacagta iyo iskale immigrationka anaa iskale xuduudaha anaa iskale maxaygan anaa leh haddaan maanta inta iyadu lahayd idhaahda anaa leh waa gardarro aan samaynayo waxaa dadka kala hagi karana waa sharciga iyo dastuurka haddii taa la waayo dee waxa weeye nin waliba dhibaatadu inta ay u joogto u gaadhaysa maanta waxaad ogtihiin burburka ay ka sameeyeen waxaan in badan uga wareegaynay arrinta gobolka Gada inaan u yara kaadino bal hal tartiib aan u xallino bal sidaan hala yeelo ilaa maanta ciidankii shabaabka la dagaalamayay iyo hubkii ay stateku u lahaa in badan oo ka mid maanta ay shabaab gacanta u galeen kuwa ay ku ururinayaan baa dheereelaa ciidan baa la waxaynaya maanta ay shabaab soo sawirayaan oo ka heleen xoog cusub u soo kordhay waa burbur siyaasadeed waa burbur amni waa burbur dhaqaale oo wadanka lala waxaynayo waxaan odhan lahaa mas-uuliyiinta Soomaaliyeed ha u fakareen ha xusuusteen ha garteen waddankani shalay waxa uu soo maray iyo maanta meeshu taagan yahay iyo waxa lagu sii socon karaya waxa ay tahay Jubbaland waa dawlad goboleed ka mid ah dawladda federaalka ee Soomaaliya xaqa dastuuriga ee lagu kala bixi karaan cid waliba waxay ku waxaysan kartaa in la wada tashado waxaa laga hadlayaa doorashada 2020 iyo dariiqay noqonayso heshiis siyaasadeed baa lagu gaari karaa doorasho iyo meesha la aadayo laakiin waan soo dhaafnay anaa idhi xilligii la odhan jiray maanta ma taalo anaa idhi iyo ra'yigana ila qumaniyo anaa jeediyey ra'yigeedii ma taalo wax kasta oo wada tashi lagala tashan horey waan u sheegnay si ay si markaan lagu aasaasay halkan khudbadii Cabdiweli Gaas baa waxay ahayd 80% wadanka dawlad goboleedyada xukumo maanta mid halkiisa lagu burburinayaa yaa lagu ogyahay mas'uuliyadda xagee wax loo wada aan ka wada shaqeynaa waxa danta guuda sida deynta la cafiyo la dagaalanka shabaabka kan waxaan hore loo wadi karo aan ka wada shaqeyno dib u heshiisiin wada hadal heshiis siyaasadeed doorashada dhacaysa nooc ay noqonayso garoon aan isku waafaqsanahay inaan waxayno ha laga daayo dadka dhibaatada iyo mushkiladda mar walba soo noqonaysa waxaan is leeyahay safarraan noo iman doona waan jeedin doonaa boosishanka aan qabliyo mowqifkayga aad baad u mahadsantihiin idinkana soo dhoweyntii waan idinka mahadcelinayaa Soomaaliya maanta kugu sanbay meel ku tegi kartaa kuna socon kartaa anaa idhi waqtigeedii waa la soo dhaafay waxaan hadda dhowr qof ay soo weydiinaysay oo tegistayda iyo sababtaan u tagay iyo safar shaqaan u tagay anaana shaqadooda haddana safar shaqaan ka soo noqdo waan ku imi wax kaloo intaan dhaafsan muuna jir propagandaduna meesheeda ma dhaafayso marka waxaan odhan lahaa Soomaaliya qof waliba mas'uuliyadda ka saaran ha ogaado in bari lagu la xisaabtamayo taani saaran waa lagu la xisaabtamaya tan ninka kale iga sareeya ama mas'uulka federaalka saaran waa lagu xisaabtamaya hadii Ilaahay aan isku duubnaano midnimadeenu inaga inoo taala
odayaashan kulli waa dadkii shalay Soomaaliya u soo rafaaday soo dhisay nin walibana uu garanayo marxaladii uu soo maray deynaan dib ugu noqonin innaga inoo taala taas